beri baa midna caso cawaan hooyadii u guuris dabadeedna waxay ku tiri hooyo gabadha markaad aqalka wada gashaan isoo wacana ku hagaye ila way ogtahay inuu nacas yahay oo waxba gabadha ku sameeyna gabadha ka dhanaansan karaayn dabadeedna islaantii baa tiri way markaad saa aqalka u gashaan isoo wac kasoo wac si hooyo sidee hooyo kaasi barwaaqa dharkii bay dhigatay sidee diga aduguna hooyo si hooyo sariirtii bay jiifsatay sidee dusha kaga jiifsooyo soo ku jiifsatay si hooyo baalkii baa adkaaday sidee war ku qabo markaas uu ku qab markaas si hooyo sidee gidaar baa soo celiyay markaas ay ku tii hoos uga dhig mar labaad bay hooyo sidee gidaar baa soo celiyay sidee war hoos uga dhig lagu qaadi markaas hooyo mar saddexaad sidee hoog buu iga dhaca markaas ay tiri ku hay barta markaas aabaa ku hayn jiray habeen dhaweed baan gabadh ku yiri sawiradaada ii soo dir cabaar bay igu adkaysay waxay tiri kuma soo dirayo walaal sawiradeeda qof hore dirin markii dambe waxay ii soo dirtay gabadh indhawaaweyn oo inta indhu laagayo soo ay ilmaabtiin oo dibadda jirta gabadhii baan iyadii mooda waayay walaal waa ku xiftiya meel baan ku dhigayaa laba cisho kadib bay tii status ka soo dhigtay walaashay Samiira waan ku hambalyeynaa gabadhii meel ka qalin jabisay anna ribeel baan u gal markaasaan ku yiri Samiira waatay saygu tideetan soo maalintii maxay igu soo diris marka dumar oo ka daay ragga sawirada beenta u dirasaan mid kale aan ku yiri iyadana sawir ii soo sawirada ayadeed moodo in dhaqaab weyn ay xiran tahay ii soo dirtay saygu tii waliba ilaali oo meel dhigo sawirkayga qof kale hayga aan ilaaliyo isaga markii hore deemaay aan ku sawirada aan dirayno photograph baan la doonan dumar oo ka daay ragga beenta sawirada leedin photograph ay gala jiraan mobilka ba xalay baan dhaqay waxa sabeen walaal deel looma dulqaadan waxaad arkaysaa nin weyn oo intuu gabadh la ballamay reer dhalay oo uu boqol hawlood ay u soo baajisay oo meel intay ugu timid intuu jeebka gacmaha iska gashto ama iska cadayanaya baad arkaysaa gabadhu macaday bay soo doonad waxaad arkaysaa nin weyn oo gabadhii markuu in yar la taagnaado cabaar ay wada hadlaan ku oranaya hal lagu helo soogtan kula taagan maxaa la helaa aan is soo qabanno soo WhatsApp-ka iguma jirtid ila soo buuqde ana hadhow ku soo qabanay war haday kula taagan tahay gabadha wax kala hada wixii la iskula sheekaysan jiray baa talo dhamaaday waagi biyadaanka baa nin sheekha wixii ibsaday booyad ninkuna wuxuu nin oday lacag leh booha dadna wuxuu siriyaad u dhiibta nin muqayil u dhiib ninka muqayilkaana wuxuu ga shakiyay inuu booyada uu ka khasaaray oo lacag ka cuno ku qayilo xagga hore wuxuu kaga qora qofku aaminay waliga ha khiyaami kii darawalka aba arkay wax ku qoran baash isna xagga dambe wuxuu kaga qora waadna tuhantay wallahi nagata dadna ay sheekh hada sidii ku xarkan goos nin baabari wuxuu ka shakiyay xaaskiisa lala sheer gareeyo dabadeedna nin saaxiibkii soo qadageeyo kiino maanta markaad ila qadayso waan ku qadageynayaa xaaskaygaan odhanaya qadayno keen qol baan adigana ku fadhiisinayaa dabadeedna markii xaaskaygu ku timaado naaska ku dhagbuyo wallahi sameeysan eegay dabadeedna naaskiibu ku dhagay way qaylsaa dabadeedna nin kala ordo yiri maxaa dhacay sitii ma wax dhacay baan garanaya soo ninkii dumaashiga ahaa bariiska dusha kaga ma qubi gaadhin sharaabkina wallahi uu bayga qabtay yaa وين يسلوق أي واحد سينايا صراحة وين كفاني شوف أنا إلهي واحد نكون برنشيب لقاعد أنا كه مركي وكحيستدي